Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Caawa waxaan qaadanaynaa daawooyinka loo isticmaalo dhiigkarka. Waa dhiigkarka daawooyinka loo isticmaalo anti-hypertension drug. Daawooyinkan waxaa ka mid ah inta badan waxaa la isticmaalaa daawooyinkan atenolol, daawo la dhahayo 1x1 oo loo isticmaalo. Waxaa la heli karaa iyadoo 50 miligram iyadoo 100 miligram iyadoo 150 miligram waa la heli karaa. Waxaan kaloo qaadanaynaa clonidine, daawadaas ayadana way jirtaa. Waxaa loo isticmaalaa daawada dhiigkarka anti-hypertensionka 1x2 ayaa ayadana laga isticmaalaa. Inta badan lagama helo Soomaaliya. Waxaa kaloo la isticmaalaa betaxonol, daawada la dhahayo ayadana waxaa loo isticmaalaa dhiigkarka anti-hypertension drug 1x1 ayaa laga isticmaalaa. Waxaa kaloo jirto metoprolol, daawo la dhahayo 1x1 ayaa ayadana laga isticmaalaa. Waa daawo dhiigkar loo isticmaalo anti-hypertension drug. oo mid ugu dambeysa ee la mid tahay atenolol waa midda shanaad, propranolol la dhahaa 1x1 waa ayadane waa hal waqti laga wada. 1x1 markii la dhahayo waa habeen oo keliya ayaa la isticmaali karaa. waxaa kaloo isticmaali karaa qofka haddii uu habeenku isticmaali karin, maalintii inuu isticmaalo ama subax keliya inuu isticmaalo. balse dhaqaatiirta waxay qortaa 1x1 waa habeenkii oo keliya bes inaad isticmaashid, ama markuu kugu kaco hal mar bes inaad isticmaashid. waa daawooyinka loo isticmaalo dhiigkarka. intaas daawo waaye, waa 5 daawo aad ugu muhiimsan oo idin diyaariyey: clonidine, atenolol, betaxolol, metoprolol iyo propranolol. waa 5taas oo keliya. Soomaaliya inta laga isticmaalo ugu caansan waa atenolol iyo propranolol. intaas ugu caansan Soomaaliya inta isticmaasho. halkan ayaa cashirkeena kusoo kabeyneynaa. wabilaahi towfiiq. is aragti dambe oo xiise leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.